بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو أنا وناكسن أصحابتي قاليقة أكسو دوادا يوتيوب كيغا شكري لابا أكتوس مركلة فيديو عصب أيانكو كل مينا جنالك هاتاكو عصب تاهي فيديو أنو يكي كوغوري وحكا عصانا جنالكينا سبسكرايب يسارتو فيديو هانا إيلا يبريسو شير كريسو أصحابتا ألا وذاكتو وانكو هاسلتاهي داوشودا فيديو ياشيدا maanta sida caadana waxaa wada fiideo cusub laakiin markasta waxa ku bilaabanaa salliga nabiga igula salli rasuulka sallallahu alayhi wasallam allahumma salli wa sallim ala nabiyina maxamed hadana fiideena hana bilowdo maanta sheekadana waxay dhacday 2011 waxaana ka dhacday wadanka Suudaan gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Khartoum halka waxaa deganaa nin la dhaho Majid da'diisu waxay ahayd 40 sano jir wuxuu ahaa dhakhtar ka shaqeeyo laba cisbitaal oo waaweyn oo kamid ah cisbitaalada ku yaala magaalada Qaahira wuxuu ahaa nin caan ah oo la wada yaqaano wanaagsan dayib akhlaaq iyo edeb iyo wanaag qof lagu tilmaami lahaa oo dhan isaga ayaa u gaar ahayd baalay nin aad wanaagsan u ahaa macnaha sida sheekadiisa lagu soo tilmaamay sidoo kale haddii uu xaafadda iyo eeriyada dadka yaqaano haddii qof maanta uu dhaco ama ay wax soo gaaraan ama uu intuu soo guriga joogo waa la soo kool garin jiray waa u tagi jiray waa u caawin jiray dadka marka nin aad u wanaagsan ayuu ahaa qisadiisa sida lagu soo sheegay sidoo kale waxaa la noolaa oo guriga la joogay hooyadiisa oo u dhalatay wadanka Masar oo Masriyad ahayd oo la dhaho Amal hooyadiisii isaga waxay ku noolaayeen nolol midda ugu wanaagsan oo qof bilaadan uu ku noolaado Dr. Majid maalmaha kamid ah ayaa waxa u tagtay askarta booliska balaaq gaarsisay gabar ay ilma adeer yihiin Majid wixii dhahday waxaan booqasho ugu tagay Majid iyo hooyadiisa rabay inaan soo booqdo laakiin waa aan waayay oo guriga ma joogaan wax iga furaay ma lahan sidoo kale waxaan tagay cisbitaalka oo Majid ka shaqeynayay waxaana la ii sheegay in uu shaqada uusan maalmahan soo galinin ayaa la igu wargeliyay aniga xogtii ugu dambeysay oo aan ka helana waxay ahayd dhahday in la igu dhahay Majid hooyadiis xaaladiisa caafimaad ayaa liidatay kadibna Majid ayaa cisbitaalka u qaaday cisbitaalka markaan tagayna waxaa la igu wargeliyay tiri in qof magacaas leh aan la keenin cisbitaalka sidoo kale Majid uusan hooyadiis keenin maalmihii la soo dhaafana isagu uusan soo imaanin shaqada ka maqan yahay marka aadaya ugu walbalsanahay dhahday waxaan wacay dhahday sidoo kale walaalihiisa oo asaga la dhashteen oo joogan wadanka banaankiisa waxaan ku dhahay hooyadin iyo Majid war ma ka heesaan waxay igu dhaheen maya wala hooyadin wala isaga wax war kama heeno mideeda kale tan waxay dhaheen mar hore ayaan anaga xiriirka ayaan u jarnay ayay dhaheen ninka askariga wuxuu dhahay oo marka dhakhtarka aad tagtay mayna ku sheegin miya xilliga ugu dambeysay oo Majid uu isbitaalka imaaday waxay igu dhaheen ayuu weydiiyay gabadha waxay ugu dhaheen waxaan ugu dambeysay maalintii laba maalin ka hor inuu nagu dhahay ii diyaariyo qof bukaan ah warqadaha qof bukaan oo berri oo kale u imaan lahaa wuxuu nagu yiri dhaheen ii diyaariyo malafaadkiisa iyo warqadaha si qofkaas berritu u imaanaya isaan u qaabilo marka awal waxa islaahay tir safar u aaday laakiin waxa ay cadaatay inaysan safar uusan aadin because hadduu safar aadayo muusan dhihi lahayn tir qofkan warqadihiisa halisii diyaariyo bukaan uu qaabilayo marka dhakhtarku wuxuu dhahay hadda bal isagii inaa heshiidii in kaleeto waa ay wacday taleefankiisii waa u xiran yahay ninka soo akiidiyay gabadhan wuxuu ku dhahay waxaad iiga sheekaysaa oo aad ii sheegtaa axwaasha ama xaaladaha faamiligiisa walaalihiisa hooyadiisa aabis xogtooda dhan bal iiga waran baaritaan asagoo sameynaya gabadha waxay dhahday Majid iyo faamiligooda waa faamili aad waxay tiri mutacalimiin u ah oo cilmiyan waa dad wax bartay ay dhahday waana dad dhaqaale haysto Majid aabihiisa dhahday oo aniga adeerkay ah wuxuu ahaayay dhahday dhakhtarka oo jaraaxa macnaha amaliyooyinka sameeya wuxuu ahaa dhakhtar weyn oo takhasus ayuu ahaayay dhahday walaashiisa tiri asaga ka yar iyaduna waxay dhakhtarad ilkaha ka tahay dhahday wadanka Britain walaasheeda iyada ku sii xigtana waxay dhahday waa injineerad waaye waxayna ka shaqeysaa tiri wadanka oo Qatar ay ka shaqeysaa midda ugu yarna waa dhakhtarad ilaajka dabiiciga ah ku daaweysa ayadana Britain ayay joogtaa marna halkan ayay imaadaa dhahday Majidna waa ninkaas dhakhtarka oo taqaaneen hooyadiis iyo aabihiis waxay isku guursadeen wadanka Masar xilli adeerkay uu halkaas shaqo u tagay ayay isbarteen dhahday Amal oo ah Majid hooyadiisa halkaas ayay isku guursadeen ilmooda halkaas ayay ugu dhasheen ilaa markii dambe uu go'aansaday dhahday Abu Majid in uu u noqdo wadankiisa Suudaan wuxuuna u tagay xaaskiisa ku dhahay waxa rabaa inaan u noqdo wadankayga Suudaan halkaasna ilmahayga ku tarbiyay
hooyadina waxay ku dhahday meel walba aadaysid waa ku raacayaa. Sidaas ayayna ku imaadeen wadanka Suudaan oo markii hore waxay kireysteen guri falayd yar ah ilaa markii dambe waxay dhahday uu dhistay Abu Maajid dabaq weyn oo ka kooban ilmihiisa mid walba falayd ugu talagalay si markuu guursado qaybta hoose iyaga isugu talagaleen afartiisa cunugna mid walba falayd u gooni ah ayuu dabaqa guriga ugaga sameeyay. Laakiin way tiri adeerkay markuu geeriyooday 2017 ilmaha adeerkay dhalay way kala tafaraaruqeen oo mid walba midka kale ay wuxuu ku eedeynaya inuu isagu qaldan yahay, inuu isaga caniid ku yahay, in isaga uuna warka maqlaynin. Sidaas ayayna u kala tageen ayay dhahday gabadhi. Intaas markay gabadha warka marsiinaysa askartii waa soo baxeen waxayna imaadeen gurigii Maajid iyo hooyadiisa ay deganaayeen. Albaabkii ayay jabiyeen markay garaaceen ay arkeen. Albaabkii markay jabiyeen askarta gudaha guriga ayay soo galeen. Intaysan gudaha u soo gudbin guriga barxadiisa hore weyn oo waa meelaha oo xadiiqada weyn oo guriga ayay waxay ka dareemeen riixo ama ur kasoo baxaysa. Urtaas oo askarta ay yaqaanaan dabcan waa mayd urkiisa. Urka hadday sii raaceen sidoo kale waxay arkeen dhiig luga dhiig oo meelo ku socdeen ilaa markii dambe dhiiggii intay daba galeen waxay arkeen Maajid oo gacmaha ka xiran lugahana ka xiran mayd ah oo dilan oo meesha yaallo. Askartii waa soo baxeen gudaha guriga haddana soo galeen waxay aadeen qolkii ay deganeed maamada qolkeedii ayay galeen. Waxay u tageen maamadii oo iska jiifta sariirta korkeeda si dabiici ah u jiifta. Markay cabaar u soo dhawaadeenna waxay ogaadeen iyada xitaa inay mayd tahay. Laakiin farqiga u dhexeeya wuxuu ahaa Maajid maydkiisa wuxuu ahaa mid oo jirkiisa wuu isbedelay oo riixuu keenay laakiin hooyada jirkeeda nadiif ayuu ahaa. Askarta marka way shakiyeen waxay is dhaheen qofkan ma wuxuu dilay markuu Maajid dilay dhowr bari kadib miyuu dilay maamada maxay tahay. Laakiin markii dambe waxay arkeen in maamada guriga ay ku jirto oo ahaa guri aad u qabow taasna halka qolka uu ku jiray Maajid uu ahaa qol kulul. Taas ay keentay in maydka oo Maajid uu durbadiiba isbedelo laakiin ka maamada uuna weli isbedelin. Intaa kadib meydadkii ayaa la qaaday waxaana loo geeyay qolada dembiga baarta oo meydka ayaa loo diray. Ayagana guriga ay baaritaan ku sameeyeen intay guriga socdeen waxay ka baareen faro wax faraa waa ay ka waayeen sidoo kale waxay ku arkeen raad dhiigag leh 3 raad oo dhiig leh oo kala duwan ayay arkeen oo guriga dhexdiisa lagu socday. Sidoo kale daaqad guriga kama jabno albaab kama jabno wax ka jaban ma lahan. Marka waxay is dhaheen maadaama Maajid uu ahaa nin dhaqaale haysto oo hooyadiisa kaligeedan ay guriga ku noolad kaamirooyin in raadiyaan waxay arkeen guriga inay kaamir ku xiran tahay laakiin nasiib darro kaamirada naftirkeeda waa ay jabneed. Waxay is dhaheen qofkan wuxuu ahaa dilay faamiligan oo saan u galay wuxuu ahaa qof la noolaa oo guriga kula noolaa oo ay aamineen ayuu ahaa markastana u imaan jiray ayuu ahaa ama wuxuu ahaa qof iyaga ee albaabka ka soo fureen. Askartii meel ay u qaadaan ayay waayeen farihii way waayeen oo wax kale oo daliil way waayeen. Ilmahoodii ayay waxay ka waceen video camera waxayna ku dhaheen fiirsha gurigiina masaan maxaa wax isbedela ma ku jiro mise saanu idin ahaa. Guriga ayay camera ugu wareejiyeen mid ka mid ah gabdhaha baa waxay dareentay waxay la yaabtay waxay dhahday meeshaas waxaa yeelay sanduuq weyn oo hooyaday dahab uga buuxo ayaa halkaas yaalay mana yaala sanduuqii wadii la eega sanduuqii meeshii ma yaalo. Sidoo kale waxay dhaheen ilmihii fiiriya garaajka waxaa yaala gaari nuuca ugu dambeeya oo gaari cusub ah oo uu Maajid iska lahaa. Sidoo kale askartu way baxeen garaashka tageen baabuurkiina ma yaalo. Arrintii marka waxaa la ogaaday inay ahayd arrin sal ku leh tuuganimo ama qof raba inuu xado. Laakiin midda askarta la yaab ku dhalisay ayaa waxay tahay qofkan waxaday xagee ayuu ka soo galay. Ma qof faamilka ka tirsan oo guriga kula noolaaya ma qof ay aamineenaa. Sidoo kale waxay ka shakiyeen shaqaalada u shaqeynaysay maamada iyo weliba ninka albaabka hore bawaabka albaabka hore taagan guriga. Intaas kadib askarta waxaa soo baxday meydkii baaritaankiisii ayaa soo baxday. Baaritaanka markuu soo baxana waxaa la ogaaday in Maajid madaxa looga dhiftay labo fast madaxa looga dhiftay bir wax culus looga dhiftay kadibna haddana mar labaad lagu celiyay madaxiisa oo jugtaas uu u dhintay kadibna saa la isku xirxiray. Maamadana waxaa la ogaaday in naqaska lagu celiyay oo ay sidaas u dhimatay maadaama ayada jirkeeda aysan wax dhibaato aysan qabinin. Waxaa la ogaaday naqaska uun in lagu celiyo. Markay halkaa sheekada marayso askartu waxay waayeen meel ay wax u qaadaan irid walba waa soo xirantay DNA hadee farar raadiyeen guriga wax faraa ma lahan
oo qofkan wuxuu ahaa qof xariif ah oo iska ilaaliyo. Sidoo kale marka waxay ka shakiyeen ninkii albaabka waardiyaha ka ahaan jiray iyo shaqaalo oo maamo weyn oo u shaqayn jirtay shaqada guriga ka saacidi jirtay ahayd. Waxay u tageen ninkii bawaabka ahaa waxayna su'aalo ku bilaabeen inay su'aalo weydiiyaan laakiin ninka wuxuu dhahay aniga gurigaas waxaan ka shaqayn jiray mar hore. Weliba intii Maajid iyo walaalihiis ay aadka u yaryaraayeen aabahood aad ayuu igu kalsoonaa aadna wuu ii jeclaa mana jirin tallaabo iyo meel ay aadaan ama meel ay ka imaadaan ilaa aniga inaan ogahay maahane. Laakiin wuxuu dhahay aniga mar hore ayaan shaqada ka tegay oo aan ka soo cududaartay mana ka joogin maalmaha oo dhan ma aana aadaynin. Baaritaan askarta ku samaysay warkiisana run ayuu noqday inuu mar hore kasoo tegay shaqada oo una markaas ka shaqaynaynin ayaa la soo ogaaday. Intaa kadib waxaa sidoo kale la soo qabtay maamadii ka shaqayn jirtay guriga iyadana waxaa la weydiiyay haya maxaa ku ogtahay iyadana waxay dhahay sidaas oo kaleeto aniga waan xanuunsaday shaqadana waa aan kasoo tagay laakiin waxaan ku dhahay gabadheeda yartaa ayaan kuu soo dira. Askartii marka way shakiyeen waxay is dhaheen meeshan waxbaa ku jirta because waxay is dhaheen in ninka washmaanka ah iyo inay isaacideen shaqaalaha sidaasna ay guriga ku soo dhaceen ayay ka shakiyeen. Maamadii gabadheeda waxaa la xilligaas maadaama xilliga uu soo xadaday ninka dhakhtarka meydadka xadaday waqtigooda waxay dhahen xilligaas oo xagee joogtay ninka waxay dhahen gurigeena joognay. Askartii maamadii iyo gabadheeda si saa'id ay u baareen mid baa ka taga mid baa u yimaada mid baa ka taga mid baa u yimaada midna qola lagu wareysanayo ilaa markii dambe ay arkeen in meeshan waxba ka soo soconin oo iska fasaxeen waxay dhaheen fasaxaad tihiin laakiin waxay dhaheen marka idin baahano waa inay imaadin banaanka ma ka bixi kartiin magaalada safarna meel muu aadi kartiin. Okay ninkiina ma aha shaqaaladiina ma ayaa waaye marka qofkan waa la fahmi waaye. Almuhiim mid ka mid ahaa nimanka oo baarayaasha ahaa baa wuxuu dhahay waxaa idin weydiiyey aaway taleefankii Dr. Maajid taleefankiisii aaway waxay ahayd inuu yaallo meeshii oo macnaha meydka iyo waxa aan ku soo aragnay hadda ma yaalle xagee aadi markaasa taleefankii la raadiyey waa la wacay wuu dansan yahay taleefanka. Taleefankii maadaama uu dansan yahay waxay soo qaateen laabtoobkiisa ayaa wuxuu ahaa Dr. Maajid dadka qof kasta oo soo waca koolkiisa wuu save gareyn jiray wuu duubi jiray kombiyuutarkiisuna ku shubi jiray shar iyo khayrba qofku wuxuu doonaa kala hadlo wuu save gareynayay kadibna kombiyuutarka ayuu ku shubi jiray. Waxay ka arkeen codad fara badan codadkii dhageysteen kulligood caadi iska ahaayeen ilaa ay u tageen mid ka mid ah codadkaasi oo askarta ka yaabiyay. Waxaa soo wacday gabadha ugu yar faamiligooda oo qaydaa walaashood midda ugu yar waaye way soo wacday maalin maalmaha ka mid ah waxayna ku dhahday Maajid aniga waxaan rabaa inaad guriga gadid oo aad dhaxalkayga ayga siisid qaybteeda aan ka qaato dhaxalkeena u baahannahay. Maajidna wuxuu dhahay laa yumkin guriga inaa iibiyaha ka yaabin gurigaan ma la iibinayo uu dhahay because hooyaday aaday u jecesha uu dhahay iyadaana hadda ku nool maadaama asaga hooyadiis weydiid inay Masar u laabato waxay dhahday meeshan ninkii xaajiga ku dhintay baa aniga iska jooga iyo gurigiisa meeshaana ku noolaanay dhahday. Marka wuxuu dhahay hooyaday meel kale aadaysa malahan gurigaana ma la gadaayo wax dhaxala waa ka helaysidna malahan ha ku riyoon dhahay hooyaday gurigan aaday u jecesha waana waxa kaliya oo aabay ka fiirsato. Gabadha way diiday murankay badisay kadibna wuxuu dhahay ima qal hadaa warka sii badisay uu dhahay shahaada ku soo sameynaa in qof aqliyan u xanuunsan aad tahay oo aadan waxa ku hadlaysay wax kale min aad kala ogeyn gurigan iyo afaariisana ugu ha soo galno dhahay marka masaas markuu dhaw waxay tiri waa yahay waa maxsanta waxa ogaatay dhahay waa maxsanta kulaha waxa ogaatay dhahday inay imaan doonto maalin adiga iyo hooyadaaba ay idin dili doono hooyadiya waa iyada hooyadeed ina maalintaas ay imaan doonto ku bishaareysay dhahay waayo uu taleefankana wajigay uga jirtay. Askartii waxay dhaheen waa kaas alalehe gabadhana ka dambaysa u manaynayna way bixeen waxay raadiyeen askarta gabadha baasaboorkeeda xilligay bixeyso imaadkeeda wixii raadiyeen waxayna ogaadeen inay markaas Suudaan ay joogto. Askartii gabadha waa la soo qabtay askartii su'aalo markay weydiiyeen way aragtay in laga shakisan yahay gabadha way qaylisay waxay dhahday aniga laa yumkin in aan hooyada iyo walaalkay dilay dhahday lacag daraadood ma dilinay dhahday aniga dilkaasna wax shaqa kuma lihin. Okay waxa la xilligaas xagee joogtay xilliga dilka uu dhacay oo dhakhtarka uu soo xadaday waxay dhahday xilligaas aan waa imaaday dhahday wadanka laakiin asxaabteeda ayaa gobol kale la joogay oo halkaas ku caawinayay dhahday. Asxaabteedii ee dadkii dhan la weydiiyay waxaana la ogaaday inay meeshaas joogtay si kastoo loo baaray gabadha aydan wax waa laga waayay waa la siiday aydan waxa la wadanka ka bixin baaritaan ku socdo. Askarta bilowgii sidoo kale dariska ay weydiiyeen oo xaaladooda waxay dhaheen ciidan sidii 2017 uu dhintay aabahood abu waxa la dhahaa Abu Maajid soo u dhintay
maamada cid u imaan jirtay iyo cid gurigeeda soo geli jirta male albaabkana cidna kama furto haddii qof dariska ah uu rabo inuu la kulmo iyada waxay dhihi jirtay ballan ii samayso dhakhtar miya ballanay u samaysan jirtay maalintaasna bannaankay ula bixi jirtay gurigeeda mamnuucu ka ahaa qof inuu gurigeeda usoo galo sidoo kale kalsoonida ay dadka ku qabto aada u yaraatay marba haddii odageeda uu dhintay ilmaheedina ay ka tageen halkaas wiil bisaa dhah hooye anaa la joogaa gabdhaha way ka kala tageen marka waxay dhaheen kalsoonida ay dadka ku qabto aad ayay u yaraatay almuhiim dhakhtarka dambi baarayaashii ayagoo wareersan oo waxay sameeyaan garan la baa waxaa dhacday in hal mar uun bifadlillaah uu daarmay taleefonkii maxaa la dhahaa majid taleefonkiyaa daarmay ishaaradii markay arkeen way raaceen askartii way baxeen way raaceen taleefonkii raaceen si usii socdeen khartuum markii laga baxo banaanka magaalada ah baa waxay arkeen guri yaroo cooshadaahoo dhis ah oo meel ku yaalo 3 nin ku jirto nimankii u tageen way soo qabteen waxa la maxaa ahaydeen nimankii waxa la dhahay taleefankan waxay keenteen waxay dhaheen taleefankan nin baa lacag raqiisan naga siiyay way dhaarteen adi inaysan wax dila geysanin inaysan waxna arkin ku dhaarteen laakiin askartu waxaas way ka diideen nimanka jinsiyadoodu waxay ahayd Ethiopian waxay aan 3 nin oo Ethiopian ahaayeen markii adi la soo qabtay nimankii waa la cadibay micnaha su'aalaha lagu badiyay hadda midda kale soo kale 3 habeen waxaa loo diiday inay seexdaan saas inay u soo jeedaan mida ka tago mida u imaado mida ka tago mida u imaado mid boqol markee daaleen oo ay cadibmeen mid kamida uu qirtay nimanka 3 nin ay ahaayeen mid la dhaho Antonio baa wuxuu dhahay anaa dilay Dr. Majid anaga ka dambeynay haye xalla inta salaam leedin ka rabay soo hadlan almuhiim wuxuu dhahay marka aniga waxa u dilay dhahay ninkii u shaqeyn jira baa shil gaali garow dhahay asoo shaqo raadinayo buu shaqaaleysiiyay dhahay waxay marka u shaqeeyna shaqada wiiga fasaxuu dhahay because waxa la ninkan wuxuu ahaa nin kadaab ah oo beenlow ah oo dhib badan iska dawareeg badan u ahaa marka waxa la yiri muddo yar markuu u shaqeeyay Dr. Majid saan u fiiriyay lacagtiisu siiyay wuxuu leeyahay tawakkal cala Allah meel kale shaqo karaad soo dhaw iska fasaxay shaqaale kalena muuna helin wali marka waxa la markasta uu u tagaa wuxuu dhahaa niyo shaqada isii niyo shaqaaleysiin niyo asna marba cistaan kugu maad wuxuu dhahaa busy ah aniga ma kula hadli kari saas uu dhahaa ninka xaqdii iyo xaasidnimo ayuu u qaaday ninkan gaarigan ku socda gaarigan wuxuu ugu dambeeyay gurigan degan lacagta adduunka dhakhtarka ah wuu ka maseeray almuhiim xaqdii iyo xaasidnimo ayuu gudaha ugu qaaday maalintuu wuxuu go'aansaday marka inuu dilo soo dilo markuu sameeyay qaabku u dili lahaa wuxuu go'aansaday inuu raadiyo wuxuu dhahay waxaan go'aansaday inaan raadiyo shaqo u dhow eeriyadiisa wuxuuna helay guriga ka soo horjeeda ayuu shaqo ka helay shaqada markuu ka helay halkaas ayuu fadhiyaa wuxuu ogaadaa xilligu baxo xilligu imaado xilligu maxaa la maamada baxdo maamada ma baxdaba iyada albaabkan hada u soo garaacida la yumkin marka furaysaa marka wax walba uu ogaaday gaarigu uu toogaaday wax kasta iyo soo galitaankiisa iyo bixitaankiisa wax kasta meeshaas wuxuu ka noqday waardiye wuuna ogaaday maalinta dambe wuxuu u wacay 2 ilmo adeeradiisa oo labadan hadal la soo qabtay wuxuu ku dhahay waxa rabaa in dilkaas fulino sidoo kale waxa ku dhiirigeliyay dilka inay fuliyaan maalin intii uu ka shaqeynayay guriga dhakhtarka intuu ka shaqeynayay baa maalin maamada waxa ka halaabay armaajada marka ka halawday waxa ku dhahay nin ii keen oo najaara wax ii sameeyo markaas wuxuu arkay sanduuqa dahabka ku jiro arkay markuu arkay niyadu ku haystay haddana ninkan baabuurkan arkay iyo lacagta guriga taalo waxa soo dhan ogaaday wixii dhan markuu ogaaday nimankii markuu u sheegay ay kan ku sii dhiirigeliyeen sababtaas keenta marka inuu dilkooda ku dhiirado wandaalay xawaan almuhiim waxa dhacday marka maalintii ay go'aamiyeen inay fuliyaan maanta dilka baa waxa la soo gaaray habeen waxay galeen 2 nin say u galeen ma aqaanaan ma fahmin laakiin waxay sii galeen xooshka guriga galeen guriga markay galeen daarad ay ku dhuunteen maybe in darbiga ka boodeen markuu imaaday Dr. Majid habeenka markuu guriga soo galay ninka kale gadaal uu ka soo markuu albaabkii uu soo galay buu kana gadaal uga imaaday albaabkii ay xireen bir buu madaxa uga dhiftay kuwii kale taas soo kala ordeen afka ka qabteen gacmaha ka xireen bir weyn ay madaxa 2 mar uga dhifteen markay 2 mar uga dhaxeen wuu soo xay dhakhtarka kadib gudaha galeen ninkan wuxuu dhahay waxaan galow dhahay qolka ay maamada ku jirto waxa uu tagu dhahay maamada hurdeyso marka uu tagay hurdeyso barkina soo qaatay sankan ka saaro dhahay naqaska ku celiyay saasay u dhimatay markay dhimatana
kaamaradana kow ay soo galayeen wuu yaqaanaa ma jaajarku ka siibay wuuna jabshay kaamarada wuu jabiyey soo wuxuu dhahay guriga wixii yaalay qaateen gaarigiina way qaateen furaha iyo wax kasta asay ka helayeen maahan way qaateen markay qaateen wayna baxsadeen halkaas ayay ku dhuunteen sidaas ayuu sheegay Antonio inay u dileen labada wiil oo kale tana waa ay kula shiraakoobeen arrintan almuhiim waa la xiray nimankii markii la xiray waxaa la marka wadanka Suudaan ilaa iyo hadda xilligan nimankaas waxay ku jiraan xabsiga ku jiraan lama tooganin lamana daldalin waxa lagu sameynin because waxa la dhahay wadanka Suudaan waxa la dhahay dilka qofka dawladdu shaqo kuma lahan Allah dawladdu micnaha dawladdu ma dili karto dadka iska lahaa Allah dadka haday rabaan iyaga cafinayo haday rabaan iyaga diika qaadanayo haday rabaan iyaga tooganayo iyaga looga fadhiyo Allah marka waxa la dhahay ilmihii la dhashay weelka waa 3 gabdhood oo banaan ku maqan waxa la dhahay kaalay imaada oo qasaastiina iyo maxaa la dhahay nimankan waxa ka yeeli lahaydeen kaalay sameeyo dawladdu go'aan ka qaadanayso dadka la sugaysa haday dhahan waa cafina waa la cafinaha Allah haday dhahan loo dilo waa la tooganaha Allah marka waxay dhaheen dadkii ilmihii kale waxay dhaheen annaga shaqo kuma lihin hooyadan haday dhimato Allah u naxariisto wiilkii haday dhintana Allah u naxariisto annaga ma imaan karno shaqadeena iyo adduunyadeena kale ku mashquulsanahay nimankan hadaa rabtiin dila hadaa rabtiin daaya hadaa rabtiin saarabtiin yaala dhahan laakiin annaka ma imaan karno wadanka Suudaan ma imaan karno gudihiisa dadkaasna shaqo kuma lihin kawaran koy tobankii dhacday ilaa hadda nimankaas waqti xaadirkan waa ay xiran yihiin wali because dadkii lahaa dilkooda ama diyadooda ama deyntooda lahaa baab u imaaneen si kasta oo dadka walaalaha ah dhexdooda ay xumaan u taala ka waran hooyada ninkii dilay iska wadaa walaalka hooyada ninka dilay oo xiran oo aad dhahdo ka waran ma imaan karo wala dahabkeedii hantidii wax kasta wixii naga shaqo kuma lihin because ilmaha markii hore aabahood dhintaba way isdagaaleen way kala tafaraaruqeen wax maxaa la dhexdooda maysan lahayn isku xirnaasan maysan lahayn laakiin colaad walba oo idin dhex taalo wax kasta oo idin dhex yaalo xumaato kasta oo idin ka dhaxeyso mar haday geeri imaado walaalka kaligiis ku ahaa wiilka uu ka dhalay oo wiilka la dhashtay ninkii dilay oo xabsi ku jiro kaale amar hooyada ninkii dilay ma deysan lahayd meelaha ku mari lahaa kaale xadada waqti yeeli lahaydeen bis waa laga way diideen Allah ma imaan karnay dhahan tiiradu way iska tagtay maba imaan karnay dhahan saarabtiin yeela idinka ama dil ama daay ku dhahan dawladda sidaas ilaahay xabsiga ugu jiraan Allah qisada maanta ay diihayeen inta ku soo gabagabeynayna inta fiidiyaan lamida ku kulmi doono waxaan idinku dhaafaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh